السلام عليكم kulanti wanaagsan asxaabta sharafta leh ee igala socota gacan qabad innovation youtube-ka iyo tiktok-gaba muuqaalkan waxaan ku faahfaahin doonaa hadduu ilaahayna gaarsiiyo next week ama next month cryptocurrency sidee u ekaa doontaa jihadee ayaa loo socdaa cryptocurrency maanta oo jimco ah ilaa iyo shalay dad fara badan ayaa oynayay haddii aad booqato meesha loo yirahdo discover oo qaybta Binance dad fara badan ayaa khasaaray 60,000 100,000 qof walba oynaya maanta suuqa marka red ayuu ahaa oo aad ayuu dhulka ugu daatay marka waxaan la fiiri doonaa next week suuqa sidoo noqon doonaa hadda caawa maqribka ilaa iyo inta aad u soo kacay maanta bisha waxa waa 20 December next week suuqa wuxuu noqon doonaa bleed day ama suuq guduudan hadda marka hadii lacag ugu jirto اختيارك adigaas kale inaad gadi doonto inaad haysan doonto isto kalena u diyaar doonto in isbuucan soo socdo ama bishan intaas dhamaanin suuq hoos daado doono kadib kor loo soo raaci doono waxaan isla fiirinaa marka analyze-ka oo maskaxdeena oo kaliya ayaa isla fiirinayna sidee ayaan u dhigi karnaa suuqa wuu daadanaa ama hoos ayuu u socdaa analyze-ka aan sameynay markii aan day tagno ama one day aan tagno waxaa arki kartaa suuqa markii uu bullback maxaa la jiray impulse-gan qaatay suuqa waa nastay waxa loo yaqaanaa bullback marka bullback-gan markuu qaato haddana higher ayuu sameynaa oo kan ka sii koreeyo higher kan markuu sameeyo waxa la rabaa marka inuu mar kale lugtan ku soo laabto ama haddii tan uu tan dhaafi waayo lugtan ay dhaafi weyso waxa qasab ah in lugta ka sii hooseysay ee suuqa uu gaaro waa hadda meesha uu marayo haddii marka tan uu gaarane higher kale ayaa jiro oo ah tan inuu tan qaybtan uu ka dhigto maxaa la jiray resistant uga dhigto ama difaac uu ka dhigto halkaas markii uu gaarane kadibna meeshaas uu soo laabto waxaa loo yaqaanaa maxaa la jiray impulse starting point ama meesha impulse uu ka bilowday waa halkan fiiqan marka hadda waxaan joognaa Dogecoin ayaa joognaa one day ayaan saaranahay one day marka Dogecoin laga yaabo inay 16 cent tagto ama inay tagto maxaa la jiray 28 cent marka dib ayaan u fiirinaynaa one hour markii la joogo structure ayuu sameeyay structure-kan waa qaab oo trend line oo ah down trend hadda marka trend line-kan waxa uu tagaa marka qaybtan kala barkan wuxuu tagaa starting point oo trade line-ka qaybta hoos ayuu tagaa kadib markii uu halkaas tago wuxuu ku laabanaa lower ayuu sameynaa waa lower halkan ka sii lowersan lower waxay noqonaysaa marka xaggaas inuu tago ilaa iyo waxa laga yaabo marka inuu tago 14 senti haddii kalena uu hadduu dhaqsi halkaa ku yimaadane haddii suuqa dhaqsi xaggaas caawa tago biri wuxuu inta imaanaa 20 senti ayuu ka laaban doonaa ama 21 senti haddii laakiin tagista inta ay ku qaadato muddo fara badan ilaa ay biri dambe ay qaadato marka lowerka wuxuu noqon doonaa 14 senti ama 16 senti ayuu noqon doonaa oo loo diyaar garoobo Dogecoin BNB iyadana waxaa analyze gareeyay inay tagi doonto hadda waxay maraysaa $655 waxay tagi doontaa $681 ilaa ay ku soo laabatay $559 waa isla fiiri doonaa insha Allah xaggaas ayuu soo dhaqaaqi doontaa waana in ku dhow hoos u dhac waxa imaan doona 12% ah oo BNB ah markii aad tagno Ethereum sidoo kale Ethereum iyadana kor ay u socotaa waxaan analyze gareynay sidoo kale iyada 15 minutes markaad joogtid ama 1 hour aad tagtid markii aad 15 minutes joogtid ama 1 hour aad joogtid wuxuu cadeynaa in trend line-kan ama down trend yariis ayuu sameeyay marka kala barkiisa ama starting point-giisa waa halkan trend line starting point-giisa waa halkan inuu jaalahaas gaari doono waana $3,539 kadibna oo la isku imaan doono ilaa $3,053 iyo $2,900 inuu Ethereum ku soo laaban doono Bitcoin haddii anagana aan soo yar ku sudayno jihadu aad doono haddii aan qiyaasno Bitcoin salaxaada koowaad ama starting point-giisa waxa waaye 98,800 waaye Bitcoin asagana xaguu u socdaa bleeding day-giisa xaguu noqonaa ilaa ay bleed wuxuu ooyi doonaa $84,000 955 ayuu Bitcoin ku soo dhici doonaa qaybta hoose
habraar iyadana waxay noqon doontaa sida aan analyze gareynay waxay gaari doontaa 27 waxayna u soo laabanaysaa 20 ayuu soo laabanaysaa hadda waaba gaartay meesha analyze gareynay entry pointigiina waan joognaa marka waxaan rajeynayaa marka the fake breakout inuu sameeyo oo yariis ah waxaan u baahanaa marka fake breakout xaggaas ay channel aan sameysanahay xaggaas channel ka saaranaysaa marka fake breakout ayuu sameynaa wuxuu gaaraa meeshaas 27 ayuu gaaraa kadibna waa uu soo laaban doonaa ilaa laga gaaro 20.34 ama 0.20 centi ayuu abraar ku soo laaban doonaa dhammaan lacagaha waa sidaas ton iyadana waxay tagi doontaa haddii ilaahna gaarsiiyo sida analyze gareynay 1 hour markii aad geysid ayaa ku ogaan kartaa ton waxay tagi doontaa 4.5 ama 4.5 dhammaan lacagaha waa sidaas XRB oo Soomaalida idin aad ugu waalneed waxa laga faa'iideystay in la dhahayo XRB ilaa caaw waxay gaari doontaa 2.4 ilaa 2.3 laakiin dhiig markii laga cabayo waxay imaan doontaa 1.9 ilaa 1.8 ayay ku soo laaban doontaa waxaan filayaa in isha ku hay doontaan suuqa isbuuca soo socda ilaa bis soo socdo suuqa wuxuu noqon doonaa bleed market ama suuq dhiig ka socdo oo aad u gududan ayuu noqon doonaa ha loo diyaar garoobo lacagaha loo sii diyaarsado lagu maalgashan karo videogan ma ahan financial advice ma ahan haddii adiga go'aankaaga ay tahay raac maalgasho haddii go'aankaaga ahaydna raadso tartiibtaada fiirso waa kaya waxay la socotaan gacan qabad innovation TikTok iyo YouTube-ka subscribe iyo comment-gana waa fikirkaaga waa madax banaanta waa soo jeedi kartaa